بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga qaayaha leh hawada naga dhagaysanaya waa codka Soomaalida Finland SSM oo idin leh kulanti wacan kuna soo dhawaada wararkii aad nooga barateen ee viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. haddaan ku bilowno dalkan Finland, hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaaga THL ayaa shaaca ka qaaday in 7 bisha tobanaad laga helay viruska corona dalkan Finland gudihiisa 120 qof oo cusub oo hor leh, taasoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 11,940 qof. 14 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dadka cusub ee laga helay viruska ay tiradoodu gaaraysaa in ka badan 903 xaaladood marka loo barbar dhigo labadii toddobaad ee ka horeysay. tirada cusub ee maanta la helay waxaa ugu badan magaalada Helsinki oo 57 qof ah, Espoo 11 iyo Vanta oo 11 iyo magaalooyin kale dhowr ah oo dad tiro yar laga helay. wax dhimasho cusub oo viruska corona awgiisa kama dhicin toddobaadkan ilaa iyo iminkana tirada u dhimatay viruska corona ee dalka Finland waxa ay gaaraysaa 346 qof. boqolkiiba 48 dadkaasi dhintay waxay ahaayeen rag, halka boqolkiiba 52 ay ahaayeen dumar. waxaa haatan daryeelka isbitaalka ugu jira 30 bukaan. qaybta daryeelka xaaladaha aadka u daranna waxaa ku jira 5 qof. golaha dowladda Finland ayaa iyaguna toddobaadkan soo socda ka shiri doona arrinka ku saabsan sharciga cudurrada faafa. ra-iisul wasaaraha dalkan Finland Sanna Marin ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in Arbacada soo socota ee golaha wasiiradu ka shiri doonaan arrinka ku saabsan sharciga cudurrada faafa, iyagoo si guud ahaaneed dib ugu eegi doona sharcigaas. waxaana golaha la horkeeni doonaa hindise ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada oo ku saabsan wax ka bedelista sharcigaas. ra-iisul wasaaruhu waxaa kaloo ay sheegtay in ay shirkaas ugu yeertay inay kala soo qayb galaan wakiilo ka socda xisbiyada mucaaradka dowladda, waayo ayay tiri arrinku waa mid aad muhiim u ah, waana in laga yeeshaa wadahadallo heer baarlamaan ah. haddii sharci isbedel lagu sameeyo, waxaa suurtagal noqonaysa in mustaqbalka howlaha wax looga hortagayo cudurrada faafa si ballaaran loo isticmaalo iyadoo aan loo baahan in la galo xaalad aan caadi ahayn ama xukun degdeg ah oo aada u weyn. wasiirka arrimaha qoyska iyo adeegyada asaasiga ah Krista Kiuru ayaa iyaduna sheegtay in Arbacada iyo Khamiista soo socotaba ay golaha dowladdu ka wada hadli doonaan howlgallada qarameed ee looga hortagayo cudurkan safmarka ah. sida ay wasiiradu sheegtay, howlgallada la diyaarinayo ee la xiriira arrimaha la soo sheegay waxa ay ku saabsan yihiin goobaha guud ee la isugu yimaado, hiwaayadaha, goobaha gaarka ah ee dadku ku kulmaan iyo sidoo kale shaqada iyo waxbarashada dhanka internetka ah. magaalada Vaasa oo noqotay magaaladii koronaha ee dalkan Finland. wararka ka imanaya magaalada Vaasa ayaa sheegaya in xaaladda faafista viruska corona ee magaaladaasi ay sii kordhayso, iyadoo tirada 100,000 ee qof kasta ay tahay 330 qayb ay ka tahay faafista cudurka, halka marka loo barbar dhigo magaalada Helsinkina 100,000 ee qof ee kasta ay ka tahay 89 xaaladood oo faafista cudurka ah. waxaana arrinku uu ka bilowday kadib markii 23 bishii 9 ay ardadu ku qabsadeen xaflado kala duwan magaaladaasi. xafladaha kadibna ay ardadaasi magaalada sii mareen oo goobo kala duwan ay cagta mariyeen, waxaana ardada ku dhex jiray dhowr qof oo sida viruska corona. tirada cusub ee maanta laga helay viruska ayaa gaaraysa 41 qof, waxaana isku darka guud ay noqonaysaa 334 qof oo qaba viruska corona. 2 toddobaad gudahood ayaa waxaa tirada dadka qaba viruska ku korortay 235 qof. dhakhtarka sare ee magaaladaasi Vaasa, Heikki Kaukaranta, ayaa mar ay warfidiyeenadu weydiiyeen maxaa Finland inteeda kale ay ka baran kartaa xaaladda faafista viruska corona ee Vaasa, wuxuu si kooban ugu jawaabay, waxaa aad u wanaagsanaan lahayd in xayiraadaha heerka qarimeed ee furnaanshaha dukaamada iyo baararka si degdega loo horgeliyo markii ay bilaabatay mowjadda labaad ee viruska corona. hase yeeshee ayuu yiri dhakhtarku, arrinkaasi waxa uu noqday mid la siyaasadeeyay isla markaana suurtagal noqon waayay in la hirgeliyo, balse arrinkaasi haddii la hirgelin lahaa bil ka hor aad baa maanta looga faa'iidi lahaa. sideeda kale waxaa mar walba habboon, ayuu yiri dhakhtar Kaukaranta, in howlaha looga hortagayo faafista viruska xilli hore la qabto. maamulayaasha macaahidda sare ee dalkan Finland iyo kuwa jaamacadda
ayaa ardayda ka codsaday in ay taxadar dheeri ah ka muujiyaan sidii fayruska looga hortagi lahaa. ardayda wax ka barata macaahidda sare iyo jaamacadaha ee dalkan Finland ayaa maalmahan dambe waxaa kusoo badanaysay inay qayb weyn ka yihiin goobo badan oo fayruska corona si weyn ugu faafay. tusaale ahaan, faafis badan oo ka dhacday magaalada Vaasa waxa ay salka ku haysay munaasabado ay ku kulmeen arday aad u fara badan, waxaana haatan maamulayaasha macaahidda sare iyo jaamacaduhuba ay si cod dheer ah gudiyada ardayda uga codsanayaan inay ardayda ku gubaabiyaan islamarkaana xusuusiyaan mas-uuliyadda ka saaran habdhaqankooda si aanay u dhicin in la xiro dhismayaasha jaamacadaha iyo macaahidda. maamulayaashu waxa ay sheegeen inay habboon tahay in haatan xisaabta lagu darsado isu imaatinka kooxaha badan ee khatarta cudur faafistu ay ka dhacday, lana xadido kulamada la isugu imaanayo oo laga dhigo kuwa ku kooban tiro aad u yar oo dad ah. gudoomiyaha ururka ardayda Finland Anna Laurila ayaa sheegtay in arrinkaas macnihiisu uusan ahayn in dadka xorriyadooda shakhsiyadeed laga qaadayo, qofkuna saaxiibadiis waa uu la kulmi karaa si ay mas-uuliyadi ku dheehan tahay isagoo sameynaya, balse waxay tiri waa in qof walba caafimaadkiisa u gaarka ah uu ka taxadaro. xilliyada furnaanshaha baararka oo la adkeeyey, xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada Kirsi Varhila ayaa sheegtay in laga bilaabo axadda soo socota la adkeyn doono xilliyada furnaanshaha baararka ee magaalooyinka xaaladda faafista cudurka safmarka ee fayruska corona ay faraha kasii baxayso. waxaana ay arrinkaas ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta wasaaradda iyo hay-adda THL wada qabteen. sida wasaaraddu sheegtay, 5 gobol oo ka mid ah dalkan Finland waxaa lagu soo rogay in baararka iyo maqaaxiyuhu ay joojiyaan iibinta khamriga saacadda 10 fiidnimo, ayna tahay in ay albaabada isugu laabaan ama xiraan baararka saacadda 11 fiidnimo. gobolada haatan xaaladda fayrusku ay cirka isku sii shareerayso oo nidaamkan lagu dabaqayo waxa ay kala yihiin Uusimaa, Varsinais-Suomi, Birkanmaa, Kantahame iyo Pohjanmaa, kuwaasoo haatan xaaladooda ay u muuqato marxaladda ah faafista aadka u sarreysa. sidoo kale waxaa la xusuusinayaa in gudaha baararka ay soo geli karaan oo keliya kala bar tirada caadiga ee loogu talagalay inay gudaha fariistaan. isbitaalada dalkan Finland oo u diyaar garoobay xaaladda fayruska corona ee aadka u sii kacaysa. waaxaha caafimaadka ee dalkan Finland ayaa isu diyaarinaya tirada sii kordhaysa ee bukaanka u baahan daryeelka qaybta xaaladaha aadka u daran, waxaana la sheegay in qaybtaas xaaladaha aadka u daran loo kordhin doono hadba sidii loogu baahdo. tirada dadka xanuunkan fayruska corona ogeed ugu jira qaybta xaaladaha aadka u daran ee dalkan Finland ayaa aad u yarayd xilligii xagaaga ee lasoo dhaafay iyo bilowgii deertan, hase yeeshee toddobaadkan ayaa tirada bukaanadaas ay aad u soo badanaysay. isbitaaladu waxa ay sheegeen in xilligii guga ee lasoo dhaafay ee fayruska corona uu dunida oo dhan ka bilowday ay wax badan ka barteen qaabka u diyaargarowga arrinkaas, waxaana ay khabiirada hawshaas ku xeeldheer sheegeen in sidii gugii lasoo dhaafay oo kale aanay hal mar diyaarin doonin sariiro aad u fara badan oo qaybta daryeelka xaaladaha aadka u daran ah, hase yeeshee si tartiib ah ay u kordhin doonaan hadba wixii loo baahdo. magaalada Vantana garoon lagu ciyaaro ciyaarta Sallibandi oo qof daawanaya laga helay fayruska corona ayay digniin ka bixinaysaa. maamulka magaalada Vanta ayaa sheegay in sabtidii lasoo dhaafay qof joogay garoonka ciyaarta Sallibandiga ee Tukurila laga helay fayruska corona, waxaana maamulka magaaladu uu digniin u dirayaa in dadkii daawanaya ciyaartaas ay suurtagal tahay inay u nuglaadaan fayruska corona. waxaa suurtagalnimada ugnaantu ay ka dhacday 3 bishan Oktoobar intii u dhaxaysay 5 ilaa 7 fiidnimo. dadkii joogay daartaas isboortiga si toosa looma gelinayo karantiin, laakiin waxaa loo soo jeedinayaa in muddo 2 toddobaad aanay la kulmin wax dad ah islamarkaana ay qaataan afshareerka. haddii ay wax astaamaha fayruska isku arkaanna ay si degdeg ah ula soo xiriiraan hay-adaha caafimaadka. toddobaadkan horaantiisii ayaa sidoo kale waxaa magaalada Vanta ay digniin ku bixisay in uu nuglaanta fayruska ay ka dhacday hoolka dabaasha ee dariska la-ah garoonkan ee magaalada Tukurila, kadib markii qof joogay hoolka dabaasha 28 ama 29 bisha Sebtembar intii u dhaxaysay saacadaha 4 ilaa 5 galabnimo laga helay fayruska corona. haatanna wararka guud ee caalamka meelaha ugu daran. dalka Poland ayaa lagu soo waramayaa in fayruska corona uu si aad ugu faafayo, sida ay sheegeen howlwadeennada wasaaradda caafimaadka. waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay laga helay dalkaasi in ka badan 3,000 oo qof oo uu ku dhacay fayruska corona,
waxaana u dhintay cudurka awgiis 75 qof. dalka Faransiiska ayaa howlwadanada wasaaradda caafimaadka ee Faransiisku waxa ay sheegeen in maalintii Talaadada laga helay dalkaas tiro kor u dhaafaysa 10,000 oo qof oo qaba fayruska corona, waxaana sida bayaanka wasaaradda lagu sheegay ay tirada guud ee dadka uu ku dhacay fayruska corona ee dalka Faransiiska ay gaaraysaa 634,000 oo qof. daryeel isbitaal waxa ugu jira fayruska awgiis dad gaaraya 7,397 qof. kuwa ku jira qaybta xaaladaha aadka u daran ayaa iyaguna waxa ay gaarayaan qiyaastii 1,426 qof. waxaana magaalada Paris lagaga dhawaaqay u diyaar garow xaalad cusub oo fayruska corona ah. dalka Talyaaniga ayaa laga bilaabo maanta isaguna khasab ka dhigay inay dadku qaataan afshareerka marka ay joogaan banaanka iyo goobaha gudaha ah, iyadoo laga baqayo in mawjad labaad oo khatar la ay ku dhufato dalkaasi sidii tii horeba ay u soo martay. dalka Jarmalkana maamulada magaalooyinka Berlin iyo Frankfurt ayaa iyaguna Talaadadii soo rogay bandow lagu mamnuucayo isu socodka dadka iyo kulamada arrimaha bulshada kadib markii faafista cudurka corona ee magaalooyinkaasi ay si walwal leh kor ugu kacday. caasimada Jarmalka ee Berlin ayaa dukaamada, maqaaxiyaha iyo baararka khamriga waxaa lagu soo rogay in la xiro inta u dhaxaysa 11 fiidnimo ilaa iyo 6 subaxnimo laga bilaabo Sabtida soo socota ilaa iyo laga gaarayo 31 bisha Oktoobar. waxaana go'aankaas laga soo reebay farmashiyaasha maxadooyinka bensiinka, laakiin maxadooyinka bensiinka lagu iibiyo waxaa laga mamnuucay in ay wax khamri ah dadka ka iibiyaan habeenkii. 7 maalmood ee ugu dambeysay ayaa xaaladda faafista fayruska corona ee magaalada Berlin ay cirka isku shareertay, taasoo noqotay in 100,000 ee qof ee kasta uu ku faafo cudurku 44.2. dalka Mareykanka wararka ka imanayana xarumaha ka hortagga iyo la dagaalanka cudurrada faafa ee dalkaasi ayaa sheegaya in tirada dadka uu ku dhacay fayruska corona ee dalka Mareykanka ay gaartay 7,436 qof, iyadoo tirada dhimashaduna ay gaartay in ka badan 209,000 oo qof. Brazil oo ah meelaha uu si xun uga dilaacay cudurka ayaa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalka laga helay 41,900 oo qof oo hor leh oo qaba fayruska corona, waana tiradii ugu badnayd ee maalin laga helo fayruska tan iyo 11 bisha Sebtembar. waxaana tirada guud ee dadka uu ku dhacay fayruska corona ee dalkaasi Brazil ay ka dhigaysaa 4.9 milyan oo qof. dhimashaduna waxay kor ugu kacday ilaa iyo qiyaastii 147,000 oo qof. wadamada galbeedka Afrika ee Nigeria, Ghana, Gambia, Sierra Leone iyo Liberia ayaa la soo sheegayaa in haatan uu ku bilowday in fayruska uu si xoog leh ugu faafo. xarunta ka hortagga cudurrada ee dalka Nigeria ayaa sheegtay in dalkaas 24 saac la soo dhaafay laga helay 120 qof oo cusub oo qaba fayruska, taasoo tirada guud ka dhigaysa 59,465 qof. dalka Ghana sida ay sheegtay hay'adda adeega caafimaadka waxaa tirada guud ee laga helay fayruska corona ay gaaraysaa 46,829 qof, halka dhimashaduna ay marayso 303 qof. dalka Gambia sida ay wasaaraddiisa caafimaadku sheegtay waxaa 24 saac ee la soo dhaafay laga helay fayruska 29 qof, iyadoo tirada guud ee dadka fayrusku ku dhacayna ka dhigaysa 3,406 qof. Sierra Leone ayaa dhankooda laga helay 19 qof, taasoo tirada guud ka dhigaysa 3,613 qof, waxaana uu dhintay cudurka 117 qof. dalka Liberia ayaa iyana tirada guud ee fayruska laga helay waxa ay gaaraysaa 1,354 qof, halka dhimashaduna ay tahay 82 qof, waxaana cudurka ka bogsaday 1,236 qof. waxaa xusid mudan in tirada guud ahaaneed ee qaaradda Afrika oo dhan ee uu ku dhacay fayrusku ay kor u dhaaftay 1,534,000 oo qof, waxaana uu dhintay in ka badan 36,900 qof. wararkii fayruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen SSM codka Soomaalida Finland. dhegeystayaal intaasi ku egyihiin tan iyo kulanteena dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.